shilalka gaadiidku waa mushkilad maalin walba u dhacda si joogto ah waxaana keentaa khasaare naf iyo maalba isugu jira geesta kalena adeegyada caafimaadku waxay ka mid yihiin baahiyaha helidooda dhaqaalaha badan kaga baxo dadka reer Somaliland hase ahaatee khibradda laga bartay dhibaatooyinka dhaqaale ee bulshada kala soo darsa caqabadahani waxay sabab u noqdeen aasaaska shirkado caymis oo dadka ka caawiya hantida faraha badan ee kaga baxda khasaaraha shilalka gaadiidka ganacsiga guryaha caafimaadka waliba waxyaabaha kale ee la halmaala Horn of Africa Insurance waa mid kamid ah shirkadaha bixiya adeegyada caymiska ee Somaliland ka dhisan waxaana ay u shaqeysaa hanaan caalami ah sida ay sheegeen mas'uuliyiinta shirkadaasi maalinta qaabilaadda dadweynuhu waa mid kamid ah hindisayaasha ay shirkadani ku soo kordhisay adeegyada ay bixiso waxaana looga gol leeyahay in macaamiisha lagu kobciyo aqoontooda dhinaca caymiska sida uu sheegay Aadan Xasan Caadi oo ah gudoomiyaha shirkadda Horn of Africa Insurance maanta waxaan qabanaynay xaflad ballaaran oo loogu talagalay soo dhaweynta bulshada oo laga hadlayay caymiska guryaha runtii caymiska waa wax aad iyo aad waddanka loo baahan yahay laakiin weli dadka weli aad iyo aad uma fahamsanaa marka waxaan doonaynaa insha allah xafladan oo kale inaan qabno marmar inaan bulshada aad iyo aad soo dhaweyno runtii marka baahida laga eego caymisku laba meelood baan si fiican u arki karnaa mid waa caymiska baabuurta oo kale baryahan waxaa laga yaabaa inay shilalka gaadiidka inay bateen magaalada Hargeysa iyo guud ahaan dalka Somaliland marka caymiska waa wax aad iyo aad loo baahan yahay systemka sidoo shaqeeya waxa weeye lacag yar baa shirkadda u dhiibaysa marka shil gashid shirkadda ayaa bixinaysa intii kale oo daawaca ama hagaajinta baabuurta midda kale xagga caafimaadka aad iyo aad loo baahan yahay waxaa laga yaabaa bulshada inay ulays badan u saaran yihiin xagga caafimaadka marka taasna waa sameynaa runtii waxaan doonaynaa horta dadka inaan soo jiidno inaan xafiiska u soo dhaweyno halkan macaamiishu waxa ay ka helayaan macluumaad ku filan oo la xiriira noocyada caymiska ee shirkadu bixiso waana albaabka furan ee uu qofku kaga ogaan karo wax badan oo aanu fahansanayn markii hore caymiska gaadiidka iyo caymiska caafimaadka runtii caymiska maanta aan wax ku soo bandhignaa waxa weeyaan waa caymiska guryaha caymiska guryaha runtii faa'iido badan buu bulshada u leeyahay tusaale ahaan haddii guri lacag badan oo qaaliya kugu taagan haddii uu dhibaato ku timaado haddii uu dab qabsado tusaale ahaan waxa ugu fudud maanta waxa weeye bulshadeena dhibka badan ku haya gurigu qiimuhu ku taagan yahay lacaga badan baa lagu runtii kaaga baxday marka dadka waxaan rabnaa macluumaad siino marka sidoo muuqata halkan xafladan maanta ma aha xaflad kuraas fariisanayo waa xaflad qofku imanayo waxa macluumaad la siinayo macluumaadkaas uu cid u soo gudbinayo marka runtii bulshada qaybay kala duwan tahay dad kale guryaha hantiilayaasha haday tahay ganacsatada ayaa lagu soo bandhignay maanta halkan inay macluumaad ama warbixin ka helaan caymiskan guryaha waxaan ugu magacdarnay xafladan xaflad furan oo caruurta oo furan tahay faamiliyada oo furan tahay cid kasta oo furan tahay marka bulshada Somaliland qaybay kala duwan soo dhaweynaa waxaan leenahay gurigu qiimuhu doonaha haduu taagan yahay hadduu 1 milyan taagan yahay awood waxaan u leenahay aan caymis ku galino